السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحان كو ايغينا سيدا لو استعماله remote desktop اما كمبيوتر ميل كليا له ان كمبيوتر كامركا كو جديد هاين اد اوغلي كديد سيدا معناها اديغو كمبيوتر كان استعماليا اد كاس اوغشيد waxaa samaynaysaa connectionka oo remote desktop marka connectionkaas sida loo sameeyo ayaan clipkan idinku tusayaa insha Allah. marka waxaad samaynaysaa si aad taas kugu suurta gasho marka hore computerkaas kale oo aad rabtid inaad gashid waa inuu remote desktop inuu on yahay uu daaran yahay. marka waxaad tagaysaa computerkaas aad galaysaa intaadan remote desktop connection samayn ka hor waxaad tagaysaa start, waxaad tagaysaa settings, waxaad tagaysaa system, marka waxaad tagaysaa remote desktop and meeshaan odhanaysa enable remote desktop. hadduu dansan yahay waad daaraysaa oo onaa ka dhigaysaa. marka micnaheeda waxa weeye markaas qof kale computer kale connection oo remote ah oo meel kale uu kaga soo xiran karaa computerka. and meeshaan odhanaysaa keep my PC awake for connection when it's plugged in. and waxay ku xiran tahay computerkaaga haddaa kaas on ka dhigtid markaas mar walba computerka ma seexanayo wuxuu diyaar u ahaanayaa in remote connection lagu soo sameeyo. tan odhanaysa make my PC discoverable waa inuu on yahay, taas oo micnaheeda tahay macnaha markaas networka uu computerka remote connection ka soo sameynaysay iyo kan waa inay isku network yihiin oo hal network ay ku wada xiran yihiin, ama wifi ha ahaado ama ethernet ha ahaado oo hal modem ama hal router ku xiran, ama shirkad networkooda ha ahaado oo hal domain macna hal network one subnet hal qayb oo network ah. taasna waa midda labaad. settingkina waa bedeli kadhaa, halkana ka bedeli kadhaa hadduusan markaas oon ahayn on aad ka dhigi kadhaa. taas markaa samaysid markaas awood waxaa siisay qof kale inuu computerkan ku soo xirto oo remote desktop ahaan ugu soo xirto. marka waxaan samaynayaa hadda computer kale oo networka aan aniga hadda isticmaalayo ku xiran ayaan waxaan samaynayaa remote desktop ahaan aan ugu xiranayaa, kaasoo ah computerkan ka dhex sameeyey oo virtual PC ah. waaba idin tusayaa oo waa computerka oo aan rabo inaan hadda aan ku xirto waa virtual computer. marka waa computerkan marka waxaan sameeyey waxaan tagay start, settings markaan tagay system, desktop enable remote desktop waan daaray and discoverable network discoverygana waan daaray oo waxaan ka dhigay si macnaha computer kasta ugu soo xirto si public ah. on ayaan ka dhigay public networka si markaas computer kale uu markaa ugu soo xirto maadaama uu computerkan uu yahay network group. marka taa markaan sameeyey waxaa kale oo aan u baahanahay si aan computerka ugu xirto waa computerka magaciisa ama IP addresskiisa. taasna waxaad samayn kartaa si aad ku heshid sida ugu fudud command promptka haddaa isticmaashid. waxaad odhan kartaa halkaan aan qori kartaa host name, marka computerka magaciisa halka kaga soo baxaya waa desktop 2. haddaa rabtid IP-ga computerka inaa isticmaashidna IP config aad taabanaysaa
marka IP addresskiisana saasuu kugu soo baxayaa. markaas saa samaysid markaas awood waxa u yeelanaysaa computer kale oo markaa isku networka ay ku xidhan yihiin inaad remote desktop ka soo samaysid. saataa u samaysid waxaan type garanaya MSTSC amase MSTSC waaga hore la isticmaali jiray. hadda waxaad samayn kartaa remote, haddaad taabatid waxaa kuu soo baxaya remote desktop connection. markaa taas samaysid waxaa odhanaysaa computerka magaciisa ay ku qoraysaa. magaciisa wuxuu ahaa desktop 2. waxaan odhanayaa connect. markaan saas sameeyo connection saas sameeyo wuxuu ii soo saarayaa maadaama hadda ka hor aan computerka connection la sameeyey. waxaan samayn karaa magaca aan ku galayo waa computerkaas userka aan u isticmaalayo inaan login ku soo sameeyo admin iyo passwordka aan u sameeyay admin account. marka computerka kalena userkaas waxaa muhiima inuu username iyo password labadaba uu leeyahay oo user oo password leh inuu leeyahay waa muhiim, haddii kale ma shaqaynayo. markaan saa sameeyo wuxuu i weydiinayaa inaan connectionkaas aan hadda sameynayo aan sameeyo oo certificate-ka iyo waxa informationkeeda u siinayaa. maadaama aana certificate isticmaalayn warnina wuxuu siinayaa uu leeyahay computerkaas identitygiisa. mar walba tan way sameeyaan marka option kaliya aad haysatid oo ah inaad markaa computerkaas ku xiratid waxa weeye adigoo yes taabatid. haddaa rabtid waa fiirin kartaa certificate-ka information maadaama certificate-kan uu computerkan isa sameeyey oo aanan haysan certificate kale oo qolo kale oo ka baxsan computerka ay samayn. saasuu warningkan ii siinayaa, macnaha wuxuu leeyahay connectionkaas securitygiisa ma fiicna maadaama aadan isticmaalayn certificate oo ka madax bannaan labadan computer oo isku xiranaya. marka maadaama aad isku network ba xiran tihiin marka wax dhiba ma lahan oo computerkan aa ku xiran connectionka sameynaysid iyo kaa connectionka ku sameynaysid labadaba waa hal network ayay ku xiran yihiin. marka waxaan gujiyey yes. saas markaan sameeyey markaa computerka kaloo isku xiray waxaan ku galay isticmaalaha ama userka oo computerka aan ka sameeyey oo local user ah. haddaa shirkad u shaqeynaysa uu domain user yahay waxaa muhiima inuu markaa userkaas uu remote desktop uu awood u leeyahay oo groupka uu remote desktop member uu ka yahay. marka hadda waxaan ku jiraa computerka labaad. wax kasta aan computerka anoo monitorkiisa fadhiya aan samayn karo ayaan halkan ka samayn karaa. markaan sameeyo oo wax kasta oo awood userkaas aan ku galay oo awood u leeyahay ayaan markaa samayn karaa oo computerka samayn karaa oo isticmaalaya remote desktop. marka remote desktop isticmaalkiisa waa saas adigoo computerkaaga computer kale ku xiran kara si adigoo markaa jooga kaad isticmaalay sidoo kale screenkiisa u arkaya. hadduu qof uu markaa fadhiyay computerka uu isticmaalayay qofkaas magaca uu ku galay haddaa ku gashay remote gasho qofka wuu ka saarayaa. haddii aan magac kale oo isticmaalo kale ah ku gashidna qofkaas wuxuu weydiinayaa in markaas uu qofkan adiga aad soo galaysid. marka hadduu ku ogolaado marka waa geli karaa, wuuna diidi karaa marka qofka. oo markuu remote desktop qof computer qof isticmaalaya remote desktop connection ku sameysay qofkaas wuxuu siinayaa awood uu ku ogolaado ama uu ku diido. laakiin haddaad isku isticmaalaysaan same user aad isticmaalaysaan markaa horu ka gelayaa maadaama uu same user yahay isaga unbu ka saarayaa. markaas hadduu isaga mar labaad login ku sameeyana aduu kaa saarayaa. marka saasaa ugu dagaalamaysaan hal computer. isticmaalka remote desktop marka intaasaan kusoo koobaya. cashirka dambe hanoo ahaato. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.